بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وزارياشا وزيرada xildhibaanada dhammaan akhyaarta kala duwan ee meeshan ku jirta hada saxaafada dadka Soomaaliyeed kala socda warbaahinta meel ay joogaan ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaakadib waxaan umaleynaa waa la kabargareeyay wixii la soo hayay iyo xaaladdu meesha ay joogto waa la sheegay si faahfaahsan oo aad u wanaagsan oo aan raalli ka nahay loo sheegay meelo yar aan dul istaagi doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo kuma dheeraynayo. marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa inay isweydiisiin maxaa raggaanu gaar isugu soo bixiyeen su'aashaas ma soo galayso. waxaan dareennay Soomaalidu inay fartan ugu soo fiiqayso ila leeyihiin de farki fiiq ma aha waaba nagu la yiriba waagii farmaajo waa wada qeylinaysana maxaa idin ku dhacay. marka waxaan rabnaa inaan muujino arrintaanu qabiil ma ahayn aragti dawladnimo ah. waxa muhiimka oo Soomaalidu isku hayana waa dawladnimada. marka inaanan cidna garab ku siinaynin dulmi oo sharciga hadduu ka leexdo aanan indhaha ka qarsanaynin in aan muujino arrintaas waxaan wakiil ugu nahay qof kasta oo Soomaaliya meel joogaba. dadna waa wada soconaa siyaasiyan dadna waa ku qanacsan yihiin arrintaas oo waa taageersan yihiin meel joogaan. waan islaanahay daawo ah arrintaas in la tuhmo laakiin waxaan rabnaa tuhmadaas halkaas inay ku dhamaato. qodobkaas waa kaas. annaga sida aad la socoteen labadii sano la soo dhaafay waxaan xoog saarnay inaan madaxweynaha la fariisano aan wax ka dhaadhicino oo dariiqa uu ku socdo aan ku dhahno dariiqan dariiq fiican ma aha madaxweynuhu maxay ahaato saaxiibo siyaasadeed aan nahay qaraabaan nahay dalkan waa maxay ahaato jilcan yahay u naxariiso ka joog meeshaas. arrintaasi waa suura gal weyse waxay soo gaartay marka in duubabka iyo odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada beesha hawiye aan u yeerno arrinta aan u gudbino kole inaad maqashana laga yaabaa usbuuc hadda la soo dhaafay dhacday. nasiib wanaag waxaan fursad u helnay haddana duubabka Soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka ayagana meesha wax joogaan inaan u gudbino. waxaan u malaynaa marka haddii ay naqayso talo iyo ra'yi waa ka edlaana hadda anaga waqtiga madaxweynaha u harayna aad u yaryaha dhowr iyo 10 bari ayaa ka hartay. mararka qaar waxaan maqalnaa maya dawladda waqtiga kuma aka 15 May wuxuu ku egyahay 15 May 2027 ku egyahay maqan doon noocaas inaan maqasheen. waxa laga hadlayo waxa waaye madaxweynaha wixii lagu doortay dastuurka lagu doortay habeenkii hoolka la galay dastuurku wuxuu sheegay 4 sano ma wuxuu sheegay 5 sano ma la ogol yahay dastuur ahaan institution inuu isu kordhiyo asaga waqti oo sanad ku darsado laba ku darsado. طبعا waxa wad ogtiin arrintaas ma jirto. waxaan u maleynaa codka inay haysiin madaxweynaha laftigiisa uu leeyahay sharcigan wax ka bedelka lagu sameeyay ma dhaqan galaya hadda wuxuu u dhaqan galaya dadkan ka dambeeya. taasna waxaan u maleynaa inay aad u caddahay madaxweynaha waqtigiisa asagaba inuu ku qanacsan yahay hore u sheegay in 2026 15 May inuu egay madaxweynaha laftigiisa inuu hore u sheegay doorashada ku galay laakiin hadda waxa socdaa ay yihiin wax ka baxsan sharciga iyo damac siyaasadeed. fasalkaas aan u gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha doorashooyinka. waa laga hadlay si faahfaahsan looga hadlay doorashooyin kasta oo keeni kara in dadka Soomaaliyeed si wanaagsan iyo sida ugu fiican uga qayb qaataan doorashada oo hufan waxa laga hadlayo hufnaan waaye anaga diyaar ah. mararka qaar waxaa la yiraahdaa maxaa miiska xusaari weyseen maadaama aan leenahay hal la tashado anaga laftigeena waxaan u arkaynaa inay habboon tahay in la tashado wax lagu tashaday heshiis lagu yahay waqti aan lagu dhimin miiska aan saarno. laakiin maadaama waqtigu hadda gabagabo uu yahay waxaan rabnaa ra'yigeena sida wasiir Cabdiraxmaan uu sheegay inaan miiska soo saarno insha Allah tabaaraka wa tacaala. taasna waxaan rabaa halkaas in aan u gudbo. ama doorashooyinka waxa loogu yeeray doorashooyin hadda socda oo magaalada Muqdisho ka dhacay ama Baydhabo ka socda
ama meelo kale laga qaban qaabinayo annaga natiijadoona ma aqbalsanin siday u socdaanna ma aqbalsanin doorashooyin heshiis lagu yaana ma aha waana wada ogtihiin cilladaha ay leeyihiin waxaan rabnaa marka madaxweynaha iyo xukuumaddaba inaan uga digno hantida dadka ummadda iyo wakhtigaba inaan looga dhumin waxaan waxba ka soo baxayn aan heshiis lagu ahayn doorashana sideeda hal ujeeddaa laga leeyahay nabaddii jirta iyo dowladnimada inay xoojiso kalsooni dhaliso hore looga sii socdo doorasho kasta oo khilaaf keenaysa oo ummaddu inay kale aragtid wanaato keenaysa ummaddu inay kale isdhowdo keenaysa lama ogola micnaha uma adeegayso ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa miihaal inaan soo qaato intiina badan dhallinyaraa tihiin dowladdii maxamed siyaad barre 2 doorasho qabatay waxay ka qabatay dalka oo dhan dad badanaa codkooda dhiibtay doorasho sax ma ahayd waa aamusantihiin maba lagu tartamina hal nina tartamaayeen doorasho macnaheeda waxaa waa in la tartamo ya marka tani waa ka sii liidataa marka hadduu madaxweynaha intuu dalka dhan qabsado oo yidhaahdo dharkiisa ministeriga soo qaato oo yidhaahdo dib u jeesta istagu daa wax kale taas ya hadda taasna ma jirto oo dalkii iskuma xirra ka mudata lisa dowladda waa wada ognahay warkaada doorashada aan ka heshiina xoog iyo xoolihiiba adaa haystee lagaama tugtug roonee iimaanka isgeli lama diin muxuu rabaa marka madaxweynaha doorashada oo rabaa noocee waay doorasho qof codaan rabaa doorasho qof codaan rabaa ilaahaan idinku dhaariyey dadka la barakiciyey dadka dhuunta la qabtay waxa aragtinoo ka dhacaya magaaladan nin waxaa sameeyey dadku ma dooranayaan mustaxiil inay doortaan dad waaweynaana baydhabo maalintii hore oo ciidanku ay galeen waa mashxaradeen waa farxeen hadda meesha ay taagan yihin waa ogtihiin yacni waxa hadda baydhabo ka dhacay haddii lagu sheego madaxaa qabsanaysa waxa ani ka sii yaabay in lacag laga samaynayo qofkii meeqa laga rabaa ma lama sheega $1 oo meela iyo 150 meela lacaga laga samaynayo ya hal xisbi iyo 10 xisbi oo mantaanada oo lacagta loo dhiibayo dhulkaa la gelay xaggaa loo diray baydhabaa loo diray haddaa xataa adiga soo sharaxdo oo isqortid ma arkaysid xogta aan ka hayno waxaa ka mid ah cajiibka ah qofka xildhibaanka waxaa laga rabaa 50 qof inay maxay ahayd u saxiix waa maqasheen oo maleena 50 qof qofku weydiina kala fiirnaa 50 lagu geyn adiga lagu tooraa 50 kaaga sheekada halkaas ay joogtaa marka madaxweynuhu dalkan hadda dhibka gaarsiin karto waa gaarsiis intaana culays ku asraaxata iimaanka Allah ku galsho iska fariiso intaan ka badan lama qaadi karo waa la dhibtooday xabsiyadu waa buuxaan oo dadku waa barakaceen oo waa faqriyeen oo waa taagan yihiin xagee u socotaa maxaa kala rabtaa inaan qaado waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka amniga ciidamada qalabka sida waxaan ku ammaanayaa geesinimada iyo nafurkaan ku ammaanayaa runtii waxay muujiyeen dulqaad iyo dadnimo laakiin beryahan waxaa soo baxay koox gaar ah oo madaxweynuhu uu ku shaqaysto oo dadkana barakicisa dadka afduubta siyaasiyiinta barashar garaysaa soo baxa dadkaas waa danley ciidan qaran waa ka baxeen waxay isu bedeleen shaqaale waxay isu baxeen kambani isu bedeleen waa ogtihiin oo maleena qofka marka guri laga duminayo yaa ka dumiyay guriga ciidankaas ma hayeen ciidanka oo dhan ma dumiyo hal ciidan dumiyo hal nina wuxuu isku leeyahay cagafta iyo ciidanka wuxuu leeyahay kambaniga billaahi calaykum ligaas buligin waxa soo aragtay mas baanka sheegay arintaas ya madaxweynuhu u shaqeeyaa dawladda sideeda waxa ogaatiin waxyaabaha mas'uulka ka tahay waxa kamid ah amniga waxa kamid ah caafimaadka waxa kamid ah waxbarashada waxa kamid ah midnimada waxa kamid ah qofka inuu helo meel uu ku haydo oo u qalanta dastuurka inagu qaranta hadda dawladda laga marabo dadka shacabka Soomaaliyeed dadka fiican weligeed ma arkin weligeed ma aragtan iyagu caafimaad warsaay ma warsadaan ama waa iska dhintaan ama iyaga isdaaweeyay waxbarasho ma warsadaan guriga loogu yimid marka ciidanka ka shaqeynaa inay qof muslim ah oo miskiin ah islaam waayeela ilmo agoon haysata oo miskiin ah inay barakiciyaan wixii dastuurka iyo sharcigu uu talagalay ma ka shaqeeyaan kama shaqeeyaan arintaas waxay dhaawacaysaa saboodkii taageerada ciidanka loo hayay waxa leenahay ka digtoonaada arinta kale waxa waaye maadaama waqtigu uu soo dhawaanayo
waxaan la soconaa dhaqdhaqaaq ciidan inuu jiro oo ku wajahan siyaasiyiinta iyo shacabka labadaba caburintiina waa bilaabatay waa la idin sheegay gabadha Caasha Macalin iyo labada wiil oo xiran iyo dad kale oo hadda magacyadooda aan meeshan ka sheegi karin waa xiran yihiin dhaqdhaqaaqa magaalada Muqdisho waxaa lagu soo rogay culays fara badan gaar ahaan dadka soo aaday dhinacan waxaa lagu soo rogay culays madaxweynaha shala markuu mucaaradka ahay aad u qayli jiray waxaas waa dhibsi jiray madaxweynuhu maxaa isbedelay bal noo sheeg maxaa isbedelay inaan fahmnaan rabnaa bis annaga dad waaweyn oo dalkan inuu dhismo oo meeshaan soo gaaro wixii tabartooda ka soo qabtaanna haddana waa u taaganna mas-uuliyaddana waxaan ugu istaagna inaysanna hurayna aragno waxaan ku hurayn maxaa la yidhi habaar laguma darsado yacni annaga hadda xilli aan wejiga qarso karno saraxatan lama joogo ee qof dhib jecel ma jiro labada isbuucoo la soo dhaafay shaqaa lagu jiray weli waa lagu jiraa wax gaara ma aha mas-uuliyaddana saaranaan dareennay waxaan rabnaa dowladduna inaysan naga dumin sharci darradana la zuuliyo arrintaas waxaa noo ag yaalla codsiga waxay shacabka Soomaaliyeed dulmiga haddii la sii daayo maalin aan wax laga qaban karno tagaaya waxa la dumi kara laakiin hadda waxaa suurtagal tin cajiin laga bixiyo kale inaan iska bixin haddii caqligooda u soo laabto oo ay nabadda qaataan wadahadal ogolaadaan doorasho ogolaadaan ahlan wasahlan laakiin hadda qaabkay u socdaan uma eka waxaa la rabaa ayadoo dhibkoodana soo gaarin inaan bannaanka isgeyno iska keenno taas waxay ku dhici kartaa in la helo taageerada loo baahan yahay in la helo annaga waa ogtihiin sacrifice aan u samaynay gaar ahaan dadka la barakiciyey saldhigga wardhigile waxay ka dhacaa ogtihiin dadaa ku dhintay hantiyaa mataqaana ku burburtay nafteena riski u gelinay taas maxay ahayd inaanan ka leexanaynin ka laabanaynin inaan garab istaagno dadka u baahan taageeradan haddii qof marka uu ku fikiro inuu ciidanka kugu bajiyo si uga baqdo asaga meesha iska joogo arrintaas arrin sax ma ah walaakuna badan yahay haddaan barakicin jiri lahayn haddaan caburin jiri lahayn haddaan dhulbab jiri lahayn si kalaaba looga hadli lahayn laakiin hadda lagama aamusi karo waajib qaran waaye waajib diini waaye culimmada taa rabtiin weydiiya meel u banaynaysa dowladdu inay dhul iibiso oo inta ganacsata ka gado ay tiri adigu gado dadkana bannaanka ku tuur ma jirto sharci islaam sharci dadka u qoran ma jiro sida ragga iga horreeya sheegeenna arrintan waxay taabanaysaa xuquuqul insaanka waxay u taabanaysaa dad in la barakiciyo waa qodob ka mid a yani qodobada dembiyada ka mid ah oo xuquuqul insaanka ay ka mid tahay diinta islaamkana qof inaad barakiciso oo cabsi geliso oo gurigiisa ugu tagto waa dembi arrintaas waxaa u malaynaa maalin walba inaad maqashiin marka waxaan rabaa nin saaxiibkeena xildhibaan ah oo wixii ka dambe maanta ay ku soo dhaceen shala maaha daraad maaha inuu yeero asaga faafinta u dhiiba xildhibaan saadka ku soo dhowo magacaygu waa Shukri Caadi Cabdi waxaan ka socdaa TV-ga Shabeelle 3 su'aal aan wadaa 3 su'aal oo aan wato oo waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxweyne Sheekh Shariif madaxweyne markuu ugu horeyso waxaan ku weydiinayaa su'aal ku aadan 15 May maxaad si dhab ah aad ugu cadeyn kartaan oo talaabaha oo aad qaadaysaan shacabka Soomaaliyeed si maalintaas ay idinkaga tashtaan sidoo kalena 15 May maxay uga duwan tahay maalmaha kale oo hore oo aad soo saarayseen go'aano oo aad ku dhawaaqdeen balse aan jirin wax ficil ah oo la sameeyay ugu dambeysay banaanbaxyo aad ku baaqdeen balse aan jirin inay dhaceen banaanbaxyadaasi oo shacabkii oo diyaar u ah aad joojiseen su'aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay haddii aadan haysanin qorshe mideysan oo doorasho ah isla markaana aad diidan tihiin doorashada qof iyo codka ah maxaa xaq idin siinaya inaad ka hor imaataan dowladda adinka oo soo bandhigin xal cad inaad u heysaan arrimaha doorashooyinka su-aasha ugu dambeysana si toosa adeeg kugu socotaa madaxweyne Sheekh Shariif waxaad ka mid tahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada Soomaaliya waxaad la kulanteen xubnaha bulshada qaybaheeda kala duwan xataa waxaad wadaan diiwaangelinta dadka ay ka maqan tahay xuquuqdooda ku aadan haddii dhibaatooyin jireed loo geystay mid maal iyo mid xuquuqba ay ka maqan tahay haddii kursiga aad ku guuleysato
ma u balan qaadaysaa shacabka dhibaataysan la barakiciyey la dhibaateeyey in xaqooda u soo celinayso ku tashanayaan maalinta kursigaas aad soo istaagtid بسم الله waxaan maleynaa inta hadda gabadha ayna weydiisay waxay ku wada jiraan waqti ku wada qoran si fiican oo faahfaahsan aan looga hadlay marka siyaasadda marka laga hadlaayo masaalix iyo mafaasid la miisaanayo waxa la sameeynayo iyo waxa ka imaanaya qofka mas'uulka inuu fiiriyo waa waajib saaran in la sugo 15 May xigmadda ku jirta waxay tahay in dawladda waqtiga ka dhamaado in waliba dadka laga yaabo inay u jilcan yihiin in la yiraahdo wali waa kaas hadda anaga 15 May inta ka dhiman waxaan ogolnahay heshiis in laga gaaro doorashooyinka oo 15 May marka ay timaado iyadoo doorashada laga heshiiyey hore lagu gudbo ujeedada aan ka leenahay waxa waaye maslaxada dalka ayaan ka leenahay su'aasha kale maxay ahaaday dadka barakacayaasha maxaa loo qabanaa hadda oo aan waxba hayn ayaa riski u qaadanay oo aan u taaganahay hadhow inaan ka aamusno suurtagal ma ahaba arintaas waa ballan بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه waa mahadsan tahay madasha samata bixintana waa mahadsan yihiin dhacdadan maanta oo madaxweynaha xusay horta waxay daba joogtaa dhacdooyinkii badnaa oo dhulboobka la xiriiray iyo barakacinta laakiin maanta waxaan indhayga ku arkay wax runtii aad looga argagaxo shalay waad ka warhaysaan in iskoola buluusiya shalay darrad in iskoola buluusiya la soo weeraray islaan uura la dilay laba qofood oo ilmaahna lagu dhaawacay dadka dhibaatada loo geysanayo waa saraakiishii ciidanka booliiska iyo militariga qaarkood ay furmaha ku jireen intooda badan waxay ahaayeen dadkii badbaadiyey xarumaha dawladda laga soo bilaabay ilaa xabsiga dhexe ilaa iyo afisioni waa dhashii ku soo barbaartay ciidanka oo weliba qaarkood saraakiil sare ay yihiin oo kulligood la yaqaano waxa barakacinaya oo maanta soo duulay sida madaxweynuhu inta ka sheegay waa ciidamo qaasa oo si gaarashaas ku hoolanna liiskooda waa haynaa ma qarin doono domestic and international waa la wadaagaynaa berrito ay ugu horreyso dhibaatada dadka gaarsiiyey ummaddaasayto saraakiil ahaan sawirradoodan haynaa waxaan haynaa ganacsad sawirradooda iyo magacyadoodan haynaa waxaan haynaa dhammaan dadkii victimska ahaa ee guryaha laga barakiciyey waxaa guryahaasayt iyagoo aan loo digin maanta la dul keenay ciidamo qaarkood waa la dhacay waad arkayseen labadan beri waxaan u dul taagnaa waxa waaye inaan dadkaasi difaaco laakiin waxaa aniga laftirkayga maanta isoo weeraray ciidan ay muxuu ahaa saldhigga gabadha raxmo iyo ciidan badan oo muxuu ahaa iskuulkiisii ugu sugaya markay yimaadeen way ugu soo qamaameen staafkaygii ayay damcaynay qoryaha ka qaataan qoryihii baabuurka dhexdiisa ayaan geliyey aniga guriga hortiisaan fadhiistay waxay yidhaahdeen haddaad inta jiifanayso iyo haddii kale markaad dhaqaaqdo guriga waa duminaynaa dhinaca gadaalay ka soo dumiyeen guriga waxayna yidhaahdeen mucaaradaad tahay nimankan kale oo guryaha degan ninkan waxa idiima taray nin mucaarada aan naqaano waayo oo bannaanka taagan gurigiisana waa duminaynaa idinkana haddaad rabtaan inaad guryihiina badbaadsataan ninkan ka dhinaca leexda marka niman taargada aniga si toos iisoo taargadgaraysanaya ay ahaayeen raggana waan aqaanaa magacyadoodan aqaanaa sawirradoodan hayaa waxay isku dayeen